السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات ميل الله لميشي جوغان وحان إذن ليهي الحمد لله أولا إلهي سبحانه وتعالى عنكم هذينو كلمة والبعفكينا كسو بحيسان وعلو باهنياي إنو أغهريو إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يأسقناطي allahna abuuray adduunka na keenay na irsaaqo na dilo na nooleysiyo ayay mahadoo dhan u sugnaatay allahaas aan maanta awooddiisa aan halkaas aanan ku soo koobi karin allahaas aan maanta nimcooyinka oo na siiyey aanan ku soo koobi karin awalan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maanta nimcada oo na siiyey waxaa loo baahan yahay inaan kaga shukrino gaar ahaan halkaan maanta waxaan jeclaystay inaan kala hadlo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan furun allaala furuntay ku sugan yihiin ayaa halkaan inaan kala hadlo jeclaystay awalan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa inoo doortay inaan ciidan naqno inaan waddanka u khidmayno inaan shaqaalo waddanka aan ka naqanno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa inoo doortay waa doorasho ilaahay ma ahan doorasho bini'aadin amba qof shakhsi ana doortay ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa inoo doortay taasi aan xaqiiqsano aana ogaano ilaahay doorashadiisii inaan annaga aan ku imaanay aan ciidan ku naqannay waayo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haddoosan na dooran lahayn annaga ciidan ma naqa lahayn marka walaalayaal halkaan mar labaad waxaan kala hadlayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan waxyaabaha mamnuuca naga ah iyo waxa markaas annaga aan ku dhaqmayno labadaas ayaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala awalan aan ku qanacno dareeska annaga aan wadanno oo ciidannimo aan ku qanacno tan koowaad tan labaad waxa mamnuuc naga ah walaalayaal askari walbo codkayga maqla waxa mamnuuc naga ah inaan annaga shakhsi istaaf u ahaano mamnuuc ayay naga tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa yacni annaga maanta adduunka ilaahay baana keenay istaaf waxaa ah ciidamada booliska oo magaalada amnigooda sugaaya annaga waxaana laga doonayaa magaalada bannaankeeda inaan ka shaqayno hoodka aan ugu galno al-shabaab inaan la dagaalagno ayaa loo baahan yahay al-shabaab annaga waxa mamnuuc naga ah inaan siyaasad ku milangno amba siyaasad aan ka sheekayno mamnuuc ayay naga tahay walaalayaal tan saddexaad waxaa mamnuuc naga ah inaan qabiil aan u adeegno amba dareeska aan qabiil uga shaqayno mamnuuc ayay naga tahay walaalayaal maanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo na doortay oo noo doortay inaan ciidankii waddankaas amnigiisa sugi lahaa oo ilaahay naga dhigay awalan allahaas ayaan oga mahad celinaynaa marka kale waxaa inoo furan inaan nahay inaan dareegno shaqaalo shacab waxaan nahay dad u shaqeeya shacabka waxaan nahay dad shacabka dhibaatada ka ilaaliya waxaan nahay dad shacabka daryeela waxaan nahay dad mar walba u gargaara ummadda Soomaaliyeed oo aanan u kala hiilinaynin oo aanan dhehaynin kanna waa qabiilkay kaasna waa qabiilkayga waa u jeedaan calankaas halkaas ka muuqdo waxaan u qaadanay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan ugu dhowaanno argagixisada al-shabaab oo waddankaas dhibaatada ku ah calankaas markaan idinkala hadlo waa calan astaanta oo ka samaysan yahayna quruxda ka muuqato waxay u eg tahay xidigtii cirka saarneed iyo baluugii cirkii oo baluug ahaa maanta ummad baa jirto calamadooda asnaam ku sawiran tahay amba waxyaabo qaldan ay ku sawiriyeen alxamdulillaah allihina siiyey cirkana siiyey oo xidigtana siiyey oo tusaale ahaan uga soo qaadanay
allahaasna inaan uga mahadino ayaa loo baahan yahay marka inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed waa mid annaga looga baahan yahay waan inaan ilaalino shaqadeena xilli walba dad shaqadooda heegan ku ah maanta annaga shakhsi inaan raacno amba staff u noqono waxba nooma soo buuxinayso laakiin waxa wax noo soo buuxinaya markaan goobteena shaqada aan heegan ku nahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan uga cabsanayno oo qof shakhsi aan waxba uga baahneen Ilaahay kaliya aan wax uga baahanahay oo cadowga argagixisada al-shabaab aan hortaaganahay mar walba ay dib soo dameecaan inay ummadda Soomaaliyeed ku suubiyaan kuwa ka falcelinaya inaan naqano ayaa la nooga baahan yahay insha Allah ta'ala mar labaad halkaan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo Ilaahay dartiisa aan u jeclahay waayo wadanka sidiisa baan wada leenahay wadanka shakhsi ma lahan qof kaliya ma lahan annagoo dhan ayaa iska leh marka ma ahan shaqada qof kaliya in la siiyo waxa loo baahan yahay shaqada in la qabsado hadda waxa macquul ah diinta yaa iska leh markii la dhaho dadka qaar inay dhahaan diinta Ilaahay baa iska leh diinta annaga ayaa iska leh Ilaahay wuxuu yiri diinukum diinta annaga ayaa iska leh dalkana annaga ayaa iska leh dawladnimadana maanta dadka inay hore u sii kiciyaan cadowga inay ka qabtaan loo baahan yahay waa annaga walaalayaal Soomaalinimada nagu weynaato alla ka cabsiga ha naga buuxsamo maanta adduunyo wax laga qaadaayo ma leh ciddi maanta adduunyo wax ka qaad isle wallaahi oo billaahi oo tallaahi allah nafsadeeda gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay adduunyo wax laga qaadi maayo ciddi maanta adduunyo wax ka aruuri islaheed adduunyo hal xabba laga qaadi maayo adduunyo oo geeri ka dambayso waxba laga qaadi maayo walaalayaal waayo wax loo baahan yahay geeridaada inaad ogaatid inaan geeriyoonayn annagoo dhan waan la soconnaa waayo adduunka cid la siiyey ma lahan maanta waxa jirto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomadiisa ayaa nahay nin dhaqaale baa la siiyey nin dhaqaale la'aan baa la dhigay nin dhaxdhaxaad baa laga dhigay marka intaasoo dhan Ilaahay uma yeelin in uu qofkaas jecel yahay uma yeelin waxa waaye waa wax Ilaahay adduunkaas oo ummadiisa ku kala fiirinaya maanta ninkii hantida haasto waxa loo baahan alxamdulillah inuu dhaho walaalihiisa gaajaysan oo wax ka siiyo ninka wax la'aanta ah alxamdulillah inuu dhaho allaha ninkaas waxa siiyey asiga ma mooga asigana waxbuu siin karaa asigana waxa loo baahan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu kaga shukriyo tan saddexaad ninka dhaxdhaxaadka ah waxa loo baahan yahay asigana qofka ka hooseeyo inuu wax siiyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga shukriyo waayo sida aan ognahay walaalayaal maanta adduunyada cid ku raagaysa ma lahan adduun oo maanta nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam oo khayr khalqillah ahaa oo qaatimin nabiyina ahaa oo marka adduunkan ka tagay annaga inaan sii joogno waxba yaanan go'aansanin annaga fikirkeena iyo hadafkeena marka aan la hadlayo ciidanka ha ahaado cadowga argagixisada al-shabaab inaan annaga hortaaganahay oo aan difaaca mar walba aan ugu jirno aan ka ilaalino ummadda Soomaaliyeed dhibaatada lagu haayo maanta Soomaalida waxaan fahmi la'nahay inaan wadankeena annaga dhibaato aan keensanay ayaan haysato mooyaane maanta Ilaahay dhibaato nooma keenin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunyada wuxuu noo keenay inaan asiga kaliya caabudno wax walbo cadow ah wadankaas soo weerara soo hajuuma inaan gacanta la galno marka insha Allah ta'ala ciidanka waxaan ku dardaarmaynaa maanta shakhsi inta daba carari laheed ummadda Soomaaliyeed ducadeeda waxay ku jirtaa askariga asoo la dagaalaya al-shabaab ku geeriyoodo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu imaqraya waa shahiid askariga asoo la dagaalaya cadowga argagixisada al-shabaab ku geeriyoodo waa shahiid
balse askarigii militariga ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo asoo staff ah geeriyoodo beel buu u shaqeynayay waayo staff waxa iska leh ciidanka booliska Soomaaliyeed annaga waxaan leenahay difaaca dalka ka ilaalinta cadowga argagixisada al-shabaab intoosan soo gaarin magaalada gudaheeda marka annagii haddaan ku milangno in adeerkay waaye iyo in abtigay waaye iyo ma ahan waayo waxa loo baahan yahay in adeerka hadduu xil helay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa siiyey dad ayaa jiro amniga sugo magaalada gudaheeda annaga shaqadeenna waa furunta shaqadeenna waa goobaha al-shabaab looga hortago marka walaalayaal aan isfahansiino Soomaali waxay dhahdaa beeni Soomaali way sheegtaa laakiin kuma maahmaahto Soomaali waxay dhahdaa lacagtaada ku dheel laakiin shaqadaada ha ku dheelin waxaan ula jeedaa walaalayaal adduunka maanta aan joogno waxaan leenahay cadowgaas oo argagixisada ah sida loola dagaali lahaana waxa looga baahan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay mar walba u diyaar garoobaan siday horeba diyaarku ugu ahaayeen ee horeba uga shaqeyn jireen inay uga sii shaqeeyaan maanta waxa sharaf noo ah shaqada wanaagsan ee ciidanka ka qabteen wadanka horumarka guulaha wadanka maanta lama soo koobi karo maasha Allah SNA guul ha leeso qor walaalayaal SNA guul ha leeso qoro inta Soomaali ah oo wadaniyiin ah oo ilaahay dartiis aan u jeclahay SNA guul ha leeso qoro walaalayaal idinkoo mahadsan ilaahay dartiis baa idin jeclahay la socda ma ihi shakhsi iska soo fadhiista markaan soo fariisanayo waxaan u soo fariistaa ummadda Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan ilaahay dartiis ayaan u jeclahay marka mana jecli ciidanka mar walba inay sharaf lahaadaan ayaan jeclahay ciidanka mar walba in la soo amaano ayaan jeclahay ciidanka mar walba in xogaha argagixisada al-shabaab lala soo xiriiriyo ayaan jeclahay waayo annagoo dhan waxaan nahay isku cadow hal cadow ayaan leenahay ciddii u malayso ciidanku unbaa cadow leh ciidanka keliya cadow ma lahana al-shabaab wuxuu cadow ku yahay ummadda Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogto ayuu cadow ku yahay wuxuu cadow ku yahay ciidanka Soomaaliyeed ayuu cadow ku yahay wuxuu cadow ku yahay dalka Soomaaliyeed ayuu cadow ku yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marqaati ayuu ka yahay waxay ku dhaqmaaqna ma ahan wax ilaahay raalli ka yahay ma ahan in 100 qof la dilo janno lagu raadiyo ma ahan in 100 qof la badbaadiyo ayaa waajib ah maasha Allah waxa idin leeyahay Soomaali meel allaale meeshay ku sugan tahay ilaahay dartiis ayaa idin jeclahay mideeda kale kiliibkan waxa idin kaga codsanayaa hooyaday macaan ayaa xanuunsan Allah ii caafiyo aamiinta ii soo qora faataxada ii mara waayo inta wadaniyiinta ah oo wadanka jecel oo dawladnimada jecel oo Soomaalinimada jecel waxaan idinka codsanayaa hooyaday macaan ayaa iga xanuunsan waayo maanta adduunyo wax la jeclaado waxa ugu fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo waalidka iyo ulul amriga markaas ku xukumo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waalidka Allah baari nooga dhigo waalidka Allah na jeclaysiyo dad waalidkoodu u khidmeey Allah naga dhigo maanta sida aan ognahay annaga dariis baan qaadanay waalidkeenana mar walba waxaan jecelnahay inaan u duceeyno ayagana ay noo soo duceeyaan balse waxa idinka codsanayaa walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan hooyaday macaan ayaa iga xanuunsan Allah ii caafiyo cid walbo kaliibkeyga fiirsato aan ilaahay dartiis isku jecelnahay aanan qabiil aan isku jecleen oo Soomaalinimo isku jecelnahay oo wadaniyad isku jecelnahay nin walbo waalidkiisa xanuunsan yahay Allah u caafiyo nin walbo waalidkiisa xanuunsan yahay Allah u caafiyo cid walbo xanuunsan oo jiifto Allah xanuunka ka kiciyo cid walbo dhibaato ku sugan ilaahay dhibaatada ka qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan mar walbo
waddankaas aan wanaagiisa aan ka shaqayn doonno oo horumarka waddanka aan ka shaqayn doonno maasha allah diraac SNA guul maasha allah maasha allah maasha allah allah ku koryeelo allah ku amaansado allah ku xafido allah ku dhooro walaalkay ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan allah dhooro allah badbaadsado ilaahaygi adduunyadana keenay baa naga qaadaya balse dadka maanta caadaysteen dhaqan xumada iyo anshax xumada marka waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado ha loo soo noqdo waddanka ha loo soo noqdo wanaagga ha laga sheekeeyo horumarka waddanka ha laga sheekeeyo guulaha waddanka ha laga sheekeeyo maanta annaga inaan naqanno ma ahan kuwa waddanka dhibaateeya maanta annaga inaan naqanno ma ahan kuwa cadow ku ah dalka maanta annaga waxaa laga doonayaa kuwii waddanka badbaadin lahaa inaan naqanno marka insha allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan waxaan idin leeyahay walaalayaal Soomaalinimada aan isku jeclaano horumarka waddanka aan ka wada shaqayno guulaha waddanka aan ka wada shaqayno waayo ma ahan maanta annaga ma nihin dad maanta shakhsi u adeegaya ma nihin waxaan u adeegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogto ayaan u adeegaynaa marka maanta adeegahaada wuxuu kaaga baahan yahay duco unbuu kaaga baahan yahay inaad u ducaysid allaha maanta geedkaas abuurtay ayaan ku dhaartay aan hoostiisa taaganahay allahaas ayaa inooga marqaati ah inaan annaga ummadda Soomaaliyeed u adeegno waayo waxaan nahay shaqaale idiin shaqeeya ha u malaynina ciidankii inay yihiin qolo meelo kale u shaqaysa ma nihin mana naqan doonno ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaan ka rajaynaynaa inaan dalkaas u adeegno sharaf ugu adeegno wanaag ugu adeegno horumarka waddanka aan ka shaqayno insha allahu tacaalaa Soomaaliya meel allaale meeshay joogto ilaahay dartiis ayaa idin jeclahay balse ciidanka way idin jecel yihiin ilaahay dartiis ay idin jecel yihiin waxaa idinkaga baahan yahay idinkana ducada ayaa idinka baahan yahay waayo haddaanan lisku ducaynin horumar lama gaaraayo haddaanan waddanka laga wada shaqaynin horumar lama gaaraayo haddaanan guulaha waddanka laga wada shaqaynin horumar lama gaaraayo laakiin haddaad aragtaan dad horumar gaaray ama dad guulaystay haddaad aragtaan waxaa isku xiran ciidankii iyo madaxdii iyo shacabkii iyo ciidankii ayaa isku xiran intaas unbaa guusha lagu gaarayaa maanta guul laguma gaarayo in aniga qof shakhsi aan u shaqeeyo amba shakhsi keliya aan maanta u adeego ma ahan ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel allaale meeshay joogaan ayaan ugu adeegaynaa maanta cid aan beel ka dhalanin ma jirto askari aan beel ka dhalanin ma jirto balse laakiin beel uma adeegayno aniga beeshaydii aniga aan ka dhashay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaati ka yahay maalinkan dareeskaas gashtay ayaan ilaahay ballan kula galay ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan inaan u adeego askari walbana waxa laga doonayaa maalinkuu dareeska gashtay inuu xaqiiqsado ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan mid u adeegaya inuu noqdo mid ka ilaaliyo qayaano qaran wiligiisan oosan suubinin waayo waddankaaga haddaad dhibaataysid ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaab ayuu ku tusayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaato ayuu ku tusayaa waxaan ku dhaaranaynaa allihiina abuurtay adduunkana keenay mar walba aan ka shaqayno guulaha waddanka mar walba aan ka shaqayno horumarka waddanka insha allahu tacaala Soomaalida waxaan ku jeclahay wanaagga way jecel yihiin marka insha allahu tacaala intii wanaagga jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala allah idin ziyaadiyo inta xumaha jecelna waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aqligiina ha idin soo celiyo waayo dalkan waa dalkeennii waa dalka annaga aan ku dhalannay waa dalka annaga aan luuqadiisa ku hadlayno waa dalka maanta annaga aan ku abtirsanno Soomaali maanta Soomaalinimada ha nugu weynaato iyo nugu weynaanin qabyaalad iyo nugu weynaanin dad baa jiro maanta caatifad qabyaalad hayso oo maskaxdooda si qaldan uga sheekeeyo war walaalayaal qabiilkaaga janno kuma geeyo ogaaw maanta qabiilkaaga janno kuma geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jannada gacanta ku haya asiga ayaa dadka geynaya marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka qabyaalada ku jirto qalbiga ka jiran
إلهي سبحانه وتعالى أسا قلوب تدالعضو قلبك الله وعافيه قلبك الله وعافيه انت وناق جعل oo horumarka wadanka jecel oo guuraha wadanka jecelna waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato wadaniyada aan ka shaqeyno horumarka wadanka aan ka shaqeyno guulaha wadanka aan ka shaqeyno yaanan naqanin maanta dad lagu shaqeystay yaanan naqanin dadka inaan u shaqeyno loo baahan yahay waa shacabka intuu qof kale nagu shaqeysan lahaa waxa ka wanaagsan shacabkeena inaan u shaqeyno inaan cadawga al-shabaab aan ka badbaadino inaan argagixisada meel allaala meeshii lagu soo sheego aan ka hortagno ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ayuu naga naqanayaa marka insha allahu tacaala soomaalida meel allaala meeshay joogto hal isgaarsiiya fariintan marka insha allahu tacaala ogaada ciidanka waa ciidankiinii ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed ma ahan ciidan beeleed ma ahan ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed Soomaali ayuu u adeegayaa Soomaali ayuu u khidmaynayaa mar walbana wuxuu dhaxanta u taagan yahay Soomaali badbaadadeeda mar walba wuxuu dhaxanta u taagan yahay Soomaali dhiigeeda inuu badbaadiyo dhiigiisa asiga bixiyo insha Allah taala idinka ducadiina ayaan annaga wax ku nahay ummadda Soomaaliyeed inta ifiirsato inta Ilaahay dartiis ii jecel waxaan idinka codsanayaa inaad noo soo duceysaan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo raali naga noqdo oo annagana wadanka aan run ka sheegno horumarka wadanka aan run ka sheegno guulaha wadanka run aan ka sheegno maasha Allah SNA guul ayaan leeyahay آمين 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 إله والدك النوع عافي إلهي ربي ورحمانه والدك النوع عافي انت مسلم إله والدك كحنوسن والدين تودا وعافيه انت مسلم oo islaamnimada sheegto oo maanta diinta islaamka lagu dhalay oo waalidkooda xanuunsan Allah u caafiyo ruux walba waalidkiisa xanuunsan yahay Allah u caafiyo ilaahay diinta islaamka nagu dilo ilaahay argagixisada inaan soo qabanno ayagoo xirxiran aan keenno Allah noo kaso waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raali ka yahay naf inaad badbaadisid ma ahan inaad naf dhibaataysid maanta dadka shaatiga u gashtay surwaalka u soo gashtay inay ummadda dhibaateeyaan insha allahu tacaala nasrigii ilaahay mar walba wuxuu ku dambeyn doonaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saddexda ciidan kale ayuu nasrigii ilaahay ku dambeyn doonaa ayaga ayaa guuleysanayaan marka insha allahu tacaala wadanka aan ka wada shaqeyno horumarka wadanka aan ka wada shaqeyno guulaha wadanka aan ka wada shaqeyno sida aan ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay لئن شكرتم لأزيدنكم وايو لئن شكرتم لأزيدنكم وحا كمدعة وحا إلهين لئن شكرتم لأزيدنكم ونوليها وحا كمدعة محيطهاي وايو عندها نغا عركين وان نمعاد إلهي نسيي عربك أنكو هاللينو وإلهي بانسيي نمعاداس لغاها أن وحكو مغلينو إلهي سبحانه وتعالى أيان نسيي صعدك أن صعونين إلهي سبحانه وتعالى أيان نسيي وايو سدح بقولي لحظا حبنوط أيا إلهي نسيي xibin walbana waxay nooga baahan tahay adkaar ayay nooga baahan tahay adkaartaasna waxay kaaga gudmi kartaa inaad dhikriga ilaahay badisid inaad wardisid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim ما شاء الله آمين الله نجا أقبله الله نجا أقبله الله نجا أجيبه الله نجا أقبله الله نجا أجيبه أنت وناق جعل الله نوزياديه أنت حماه جعل الله وناق تصه الله نجا قبت مديه كرني وناق الله تصه واي الله قبت داد هذه يعني هبار واي هبار كما في عنو هبار وحن أجنها النبي الله نوح عليه السلام سقال بقولي كنت سنة أيو قوم كيسو دقاي هل كي مروا هبارينه وطن لداي maxaad u habaartay marka habaarka ma fiicna insha Allah taala marka culimada waxaan leeyahay aan ka codsanayaa aniga nin cilmi badan leeyahay nin caalim eemihi waxaan ahay askari maskiin ah wadani ah ilaahay subhanahu wa ta'ala doortay inuu wanaaga ka sheekeeyo loo doortay
oo haddana ka tirsan qaybta wacyigelinta ciidanka. marka maanta waxaan idin dheera ma jirto, maanta waxaan idin dheerahay ma jirto. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ii oggolaaday inaan wanaagga a idiin soo mariyo baraha bulshada, aan ciidanka wanaagga aan la hor istaago. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ii oggolaaday, marka allahaas ayaan ku mahadinayaa. idinkana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa idinka rajaynayaa dad wanaagga sheega inaad naqataan, dad xumaha nafida inaad naqataan. ilaahay subxaanahu wa tacaala si raalli aashadiisa aan u helno oo waddankeenana amni u noqdo, cadowga al-shabaabna aan u guulaysano. ما شاء الله أفرت عيدان وضروري إن لو دعي هل عيدان معان أفرت عيدان وإسكدوا بنيهين وايا عيدان كالصوماليات مركي لو هو أفر عيدان أفرت بدو عدوي مدنيين. ما شاء الله الله أفرت وضو بدباديو أفرت وضو الله دادكي ودن كوشا غيلها ومد الصوماليات مروا ليقود بدبادين لها وحولها ومد الصوماليات اسكي إلالين لها وناقا كشاقين لها إنو إلهي نغدقو تاسنا فاتح هذا نوغو مرة meel allaale meeshaad joogtaan ummadda Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay ilaahay dartiisa ayaa idin jeclahay, ilaahay dartiisa ayaa idin jeclahay. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad, ducada badiya, rabbi tuuga badiya sidoo ilaahay futuuxaad noogu furo, gargaarka nasriga ilaahay ay ku helaan ciidanka. waayo waxaan la socdaa maanta inaysan ducada yareen, rabbi tuuga oosan yareen. insha allahu tacaala aan sii dadaalno, salaadu leelka aan soo kacno, salaada subax intaan la gaarin 10 saac aan soo kacno, rabbiga aan gacmaha u taagno. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laga tuugay lama waayo, laakiin bini aadam wax laga tuugay waa la waayaa. waayo ninka maanta aad wax weydiisatay, adi maanta aad weydiisay beri'iisoona oo ku dhahay caawo geeriyoodi, maxaa helaysaa? ninkii wax waa ku siinaa ku dhahayaaba geeriyoodiba, maxaad helaysaa? waxa ma helaysid. ilaan qofkii aa wax ka rabtay oo ballanta kuu qaaday ayaaba geeriyoodiba. marka allaha aan geeriyoonaynin, allaha aanan hurdaynin, allaha mar walba ummaddiisa u taagan, mar walba aan wax warsano. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ihdina siraada almustaqiim, siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin. ilaahay subxaanahu wa tacaala baryada la baryo maanta waa naga ajiibayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta tuugmadiisa wuu naga ajiibayaa. ma ahan maanta annaga inaan baryadii ka gaabino, ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan barino waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib oo na saaray. waayo ibarya anaa idinka ajiibaya ayuuna leeyahay, udcuulii astajib lakum. marka walaalayaal wax la baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu weyn. marka bini aadin maanta baryadiisa wax ma tarto, ilaahay aan barino, khayraadka waddankeena ka buuxa aan la soo baxno. badaheenna maanta waxaan la soconnaa badda Soomaaliyeed wax ka khayraad badan ma lahan. waayo caalamkao dhan siday ila tahay, aniga ma aanan soo marin caalamkao dhan ma tagin, balse siday ila tahay inay baddeeda ugu khayr badan tahay baadda. khayraadka baddeenna ka buuxo, malaayiga ka buuxo, nimcooyinka ka buuxaan allahna siiyey. baryadiisa aan badin insha allahu tacaala. beeraha aan tacbanno insha allahu tacaala. xumaanta aan iska ilaalino, wanaagga aan ka shaqayno, horumarka waddanka aan ka shaqayno. maanta ilaahay wuxuu jecel yahay yadul culyaa khayru min yadi suflaa. mar walba gacanta koraysa ayaa la jecel yahay. kuwii wax bixiya allah naga dhigo, kuwii wax bixiya allah naga dhigo, kuwii dowladnimada jeclaaday allah naga dhigo, kuwii horumarka waddanka ka shaqeeyay allah naga dhigo, kuwii waddanka sharfay oo mar walba waddanka wanaagiis ka sheekeynaya allah naga dhigo. insha allahu tacaala Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. halkan waxaan ka salaamayaa madaxda oo idil meel alaala meeshay joogaan, mid allaala mansabka ayuu ku fadhiyo, xilka uu ku haayo ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iisoo qora SNA guul, waalidka allah noo caafiyo. labadan ayaa idinka doonaya insha allahu tacaala. in walbo waalidkiisa xanuunsan tahay in allah u caafiyo. SNA guul, ilaahu waalidiinta noo caafi. labadan eray ee idinka rabaa insha allahu tacaala. waxaan ugu ducaynaynaa waalidiinta xanuunsan sida aniga idinla hadlaayo. hooyaday allah ii caafiyo way xanuunsan tahay. marka insha allahu tacaala ducadana waxbayna taraysaa. ninkii ilaahay ducada ka aqbalaayo ma sheegi karno.
waayo ummadoo dhan way isku jiraan lama kala kasi karo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka sugnaa dadka waxaa ku jira qof booraysan oo qofkaasna ducadiisa la aqbalaayo marka midka ducadiisa la aqbalaayo ma sheegi karno insha allahu tacaala aan wada ducayno ilaahay aan tuugno rabbiga aan barino dowladnimada aan ka shaqayno shaqada aan ilaalino mar walbana heegan aan u ahaano shaqaneeda insha allahu tacaala dad u diyaarsan shaqadooda aan naqano wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato waa ujeedaan calankii soomaaliyeed ayaa halkaas ku sitaa waad aragtaan halkaana maxaan ku sitaa calankii gaashaandhigga marka insha allahu tacaala labadaas calan waxay nooga turjumayaan inaan annaga mar walba argagixisada aan hortagno aan ka hortagno meel allaale meeshay joogaan aan ugu tagno guri alle gurigay ku jiraan aan ugu galno aan ka soo qabanno kii dagaalamayana aan dilno kii isdhiibana aan soo qabanno wanaag aan ku keenno insha allahu tacaala marka geesinimada waa isku ogeyn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed libaaxii afrika waa isku ogeyn inaan annaga la baxnay maasha allah ciidanka waxaa idiin sheegaya insha allahu tacaala inay libaaxyadii afrika soo noqdeen aan dadka tusno cadowga argagixisada aan soo qabanno maasha allah SNA guul caafimaad taama allow noo sii waalidiinta maasha allah diraac maasha allah allah ku xafido allah ku dhooro maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel allaale meesha soomaali ku turan tahay waxaa idinku salaamay salaanta islaamka soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha midowdo soomaaliya mar walba waxaan jecelnahay midnimadeeda kalgogo'naashadeeda ma jeclin marka insha allahu tacaala wanaagga in laga wada shaqeeyo horumarka waddanka laga shaqeeyo aan ku dadaalno insha allahu tacaala ilaahaygiina abuuray adduunkana keenay aan wada barino wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu SNA guul